Magacaygu waa David. Sheekadani waxay igu dhacday xilli aan dhiganayay jaamacadda, gaar ahaan xilli aan dhameeyay semesterka labaad ee jaamacadda. Waxaan go'aansaday xilligaas inaan waalidiinteeda u aado dalxiis ama aan waqtiga la soo qaato, balse xilligaas waxaan la kulmay iyaga oo bixi rabaan. Waxayna dhaheen isbuuc kadib waan soo laabanaynaa howlo shaqo jira awgood. Hay ayaan ku dhahay, sidii ayayna ku baxeen labadoodiba. Gurigana waxaa ku soo haray aniga keligay. Markii habeenkii la gaaray ayaan go'aansaday inaan daawado TV-ga. Markaan daawanayay TV-ga ayaa waxaa soo galay news markaas soo dhacay oo cusba oona sheegayay in la helay amaba la ogaaday inuu jiro serial killer amaba nin dilaa ah kaasoo xilli dhaweeto dilay dad aad u tiro badan, aanana weli gacanta lagu dhigin, dadkana looga digayo. Waxaana meesha la soo saaray sawirkiisa. Aad ayaan uga nacay maadaama uu ahaa nin aad looga cabsanayo wejigiisa. Wuxuu ahaa mid qaab ahaan u eg maafiyo, wejigiisana aad ka dareemayso bilaa naxariis iyo lacnad. Wuxuuba u ekaa mararka qaar aan isdhahaa masiixu dajaal. Ilkihiisa waxaad moodaa kuwo lagu sharxay waxyaaba qaab daran. Jirkiisana wuxuu ahaa mid jeexjeexan, aad ka dareemayso ninkan inuu yahay nin dilaa ah. Aad ayaan u nacay. Waxaana igu soo dhacay waxyaabo badan oo niyadeyda soo galay oo uu aabbahay iiga sheekeyn jiray xilliyo horeeto. Waxaana ku fikiray qofkaas inuu haysto mindi kaasoo dadka dhan uu ku dilaayo. Markiiba waan soo kacay, waxaana bilaabay inaan xiro dhammaan daaqadooyinka iyo albaabada uu gurigeena lahaa. Waxaana jiray ay yar oo aniga lahaa oo lagu magacaabi jiray Bruno. Waxaan ooga soo tagay qolka fadhiga, waxaana soo galay qolkayga si aan u yara akhristo buug oo aan isku yara mashquuliyo oo aan isku dhaafiyo murugada aan yara dareemayo. Waxaan iska dhadhacsiiyey in waxaas macquul ahayn inuu ninkaas aniga ii imaado. Meeshii ayaan ku gamcay oo hurdo aad u daran ayaa ii heysay. Waana iska seexday ilaa aan ku soo kacay xilli saqdhaca ah, biyaha oo furan, weliba qaybta jikada. Aad ayaan u yaabay. Saacaddu waxay ahayd 11:15. Waxaan dhahay xilligan maxaa waa shanqarta yeerayso. Waxaana dareemay eygeyga inuu banaanka qaylinayo. Waan yaabay, muxuu eyga banaanka qabanaya gudaha ayuuba joogay. Jaranjarta ayaan kasoo degtay anigoo aad u hurdaysan oo indhaha isku haysta, weliba tartiib u socdo si aanan u dhicin maadaama aan aad u hurdaysanaa. Jaranjartii ayaan kasoo degtay, balse intaas waxyaabo badan ayaan maqlayay iyo buuqa oo aad u sii tirabato iyo eygeyga oo aad moodo in la ciijinayo ama lagu dhagan yahay. Waxaan dhahay Bruno. Waan u wacay eygeyga, misena wax ii jawaabo amaba shanqartiisii ayaan waayay oo hal mar ayuu shib dhahay. Anigii naxdin ayaan yara dareemay, cabsi ayaan ay gashay maadaama waxyaabo badan ay hore ugu programsanayeen. Markiiba waxaa tagtay korontada, taasoo aniga naga dhigtay inaan aad u sii cabsado. Nalka ayaan isku dayay inaan shido, misena maba shidmaayo. Taleefankayga ayaan la soo baxay, tooshka ayaan si tartiiba u shitay. Waxaana dhahay yaa jooga meeshaan, yuu yahay qofkayga cabsiina oo igu ciyaarayo, misena qofna ilamaba uusan hadlayn. Waxaan dareemay cabsi ka daran midii horeeto oo aad ayaan buu sii cabsaday. Tooshka ayaan afarta gees ku iftiimiyaa. Waxaan is dhahay yaa waayo qofkan. 100 su'aalood ayay maskaxdayda isweydiinaysaa. Waxaan fiiriyay meesha eygeyga u jiifay, misena ma u jiifaba. Albaabka ayaan soo fiiriyay, misena albaabka waa la soo jebiyey oo albaabka waa uu jaban yahay. Waxaana arkay nalalka ciidaha kaleeto inay u shidan yihiin. Taas daraaddeedna aan dareemay in guriga uu qof igula jiro. Gudaha ayaan soo galay, geesinimo ayaan iska raadiyey. Waxaana imaaday meeshii laga kontaroolayay nalalka amaba laga shidaayay oo saacadda ku xirnayd. Misena waxaa arkay saacadda oo off ah, misena la xiray ama xiran badda. Markiiba waa shiday. Waxaan isweydiiyey uu noqon kara qofkaas. Anigana intaas maskaxdayda waxaa ku jira ninkii serial killerka ahaa. Geeska ayaan soo fiiriyey, misena waxaaba taagan nin haysta mindi dheer. Waana ninkii serial killerka oo newska laga sheegayay. Wuxuuna dhahay hey wariyaa, cid miyaa kula joogto mise keliga ayaa tahay? Maanta adiga ayay ku maraysaa, isdiyaari, markaagii waaye. Anigii
naxdin wadnaha ayaa iga soo dhici gaaray. wuxuuna igu yidhi haye markaaga waayahe, wuuna igu soo cararay. aniga ma aanan sugin, albaabkii ayaan ku soo xiray, waana fakaday, waana ka degtay qaybtii. albaabka waan ku soo xiray, mana uusan awoodin inuu albaabka iska furo maadaama albaabka bannaanka laga xiri jiray. anigii dhulka ayaa ku dhacay naxdin daraaddeed, taleefankaygana dhulka ayuu igaga dhacay. waan soo istaagay isla markiiba. meesha waxay ahayd mid mugdi ah, waxba aan la arkin. nalkii ayaan gacanta kula raadiyey maadaama aan dayta damiyey. markiiba waan shatay, misena waxaanba arkay eygaygii oo la dilay. meeshan waxaa daadsanaa dhiig aad u tiro badan. aad ayaan u naxay, waxaan dhahay eygaygii Bruno maxaa ku dhacay? aad ayaan u qayliyey. misena ninkii albaabka aad ayuu u soo garaacayaa oo wax uu rabaa inuu soo galo. aniga waxaan leeyahay maxaa iga rabtaa, maxaa iga damacsan tahay? meel aan ka bax maysa jirin aanan ka ahayn daaqadda yariista ee daaqaddii ayaan ka soo baxay, waana soo fakaday. waxaana soo aaday guriyaasi dariskeen ahaa. waxaana ku dhahay miyay caawin kartaan? ninka serial killerka ahaa ayaa gudaha ku jiro. yaa intay dheheen ayuu gudaha ninka ku laabtay. ninkana waxaa u joogay 3 qof, amaba asaga iyo 2 qof oo kaleeto. qoryaalna ay guriga ayuu u yaalay. wayna soo qaateen gurigii ayayna soo galeen. keliya waxaan ku aragnay raad iyo dhiiggii eygaygii Bruno. markiiba waxaa imaaday waalidkayga iyo booliiska oo arrintii xaliyey. gurigiina waan iskaga soo guurnay, ninkiina sidii ayaa lagu waayay. anigana waxaan ahaa mid mar walba ka fikira ninkaas oo maba aanan ilaawin ibidkay. markaas ayayna ahayd xilligii ugu dambeysay ninkaas oo dib dambe maba aanan arag. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya subscribe, sidoo kalena videoga like saar. aad ayaad u mahadsan tahay.